يا فوز من نال الشهادة صادقا تمحى الذنوب إذا الدماء تقطر وإذا الزهور تعطرت بعبيرها مسك تفوح جيران now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please. asalaamu calaykum waa idin salaama asxaabteyda halaawar dhammaantiin waa kala baadiyownay waa idin salaam dalay dibad meel ay iga daawanaysa sheekadan waxay ku dhacday adeerkay waa nin madaxa hal habeen wuu seexday madaxda weliba kuwa ugu sareysa waa wuxuu kusoo toosanaag lugta ka saaraysa xabadka markaasuu yaabay isla markii jiifkii uu ku laabtay isagoo argagaxsan subax markuu soo kacay waxay ahayd arrintaas arrin riyo ah meesha ugu layaabka badan waxay tahay aniga waxaan soo booqday nin baadari ah ninkii waxaan ku yeeray caawi nin kale oo bodyguardna waa u wacday wuxuu igu yiri habeenay fiican tahay niyo in sixirkan laga saaro waa lagu sixir aniga yab afkiin qabsaday isla markaas habeenkii dambe uu imaaday si layga saaro waxaan bas kii baadarigii oo ii duceynay inkaar qaba timaa cado timaa bambas kale anaagta xumeed oo timaa dhuxusha leedahay imaada sixiroleyda nayahe wiilkan waa inaad ka istaagtaa ma fahmaysaa maandhacado dhashay maxaa noo malays aniga wiilkan waan jecla mana ka hari karo baadariyow adaa cerka roobka og maandhaco dhala maanaha wiilkan iga reebaysaa haddaba naagtan timaa dhuxusha le waxay tiri wiilkan meela jiro aan ku aasay sixirkii aan sixiray haddana waa inaan aadnaa meesha okay diyaar waa wiilkanna waa inaad ka hartaa waxay timaa dhuxusha le meeshiyaa marka imaanay waa meel dhismo ah waa qodnay anigii ninkii baadariga ahaa isla markii waxaaba dhacdabo inay kasoo dhexbaxaan kartoon xun oo yar oo cirbado lagu mudmuday iyo dhar yara ani lahaa aniga naxdin ma waxaana igu sixirkaada la dhimo aniga isla markii waa tuura baalkii ninkii baadariga ahaana meeshii iyo wixii dhan wuu wada gubay wuuna duduceeyey inkaar qaba asagan meesha ugu layaabka badan waxay tahay mar walba oo qof aa weydiiyey arrintaas wuu nixi jiray waayo taariikh la yaab leh ahayd meesha ugu dambeysay aniga habeenkii markaan seexanayo eegaygaan la seexan jiray waayo wax walba iska dhici kara eega mararka qaarkiis waxyaalo qaar oo arkaya wuu soo ordaya muraayadu ku adkaylna muraayadan naagtii timaa dhuxusha la sheedaamada kasoo agbaxayso aniga maalinta waxay ka dambeeyay arrintan qof walba u sheegay oo iga agdhowa habeenkii dambe waxaan ku riyooday anigoo bahal weyn ijiidana waa anigan waa qaylna arrintan waxa uga sheekeynaa hawirtay marka waxay ugu tiri adeerooyinkaada badanaa mar lagu sixiro mar sidaan lagu yeelo waa dhib badan tahay niyo marka maalinta waxay ka dambeysay waxaan go-aan ku gaaray inaan iska taxadiro waayo sixirka liiga geystay ilaa maantadan ma ilaawi karo waana qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabay layga saara waana ku mahadsantihiin daawashadiina haddii sixirkaa la heli lahayn maanta waa dhiman lahaa sheekada xigta waxaan jiraa 34 sano sidoo kale habeenkii aan shaqeeyaa sheekadan waxay ugu dhacday 2 sano ka hor saasay tahay gaarigaygii aan ku shaqayn jiro oo iga jabay inta badan Uber adeegsadaa habeenkan aad u daahay Uber dalbaday Uberka marka magaciisa maaka la yiraahdaa waa nin macnaha raqiis ah waxa lagu raacay isla markii uu imaaday anigana gaariga waan soo koray meesha ugu layaabka badan waxay tahay gaarigiisa aad looga cabsanaa muraayada madmadow laakiin waxa igama gelin isla markii gaariga waa soo dhawaa kaxeera ninkan timo dhaadheer uu lahaa sidoo kale dhaga ugu jiro sida naagihii sidoo kale wuxuu xirnaa faraantiyo markaas ugu yiri nolosha ka warnayo waxay timaa cilaan kale waxay timaa faras kale nabadniyo waxa shaqadaada ma ahane aan dhacayo xunka albaabkaas afuran qof xataa hadduu isku dayo inuu soo furo ma fahanti aniga markaas shaki qaada oo soo maaha gaari Uber maxaa u diiday dadka inuu soo koranayo aniga ninkan filinkiisa oo bugi waayay waxaa isra ninkan wax kale u damacsan yahay marka taleefankayga isku yar mashquul waxaa sadhaa guriga waa imaad ayuu igu yiri aniga waaya maxaad damacsantahay ama caafimaad qabtaa horta Oraya aamus ayuu igu yiri 10 second kadib anigana waxaa isir orniyo adiga nin fiyo mowtiid baniyo mawaalanta
war ma maqashid miya in daaqadan lagu soo qaraacay daaqadee hadee gaarigan highwaygu maraya wadada ugu sareysa aniga yaa ninkan masixiroola ada cabaar kadib gaariga wuxuu damcay inuu bareega uu qabto anigana yaab muxuu u istaajiyaa isir aniga yaab naxdin wallah ninkan aad u waashay isla markii wuxuu bilaabay madaxa inuu leexiyay gaarigan high speed ku wado aniga naxdin markaasaan ku war nin waalan baa tahay gaariga naga istaajiniyo mar hore laga rabo saaxib hadda waa waqti late ah waa soo daahday saaxib waa dhimanaynaa ma fahanti maxaa dhacanayo anigan wuxuu iga fiirinaya muraayada gaariga kore markaas waxaan ku iri nin maxaa qaldan saaxiibo wuu isoo fiiriyay markaas igu yiri wax ma fahmaysid miya maandhaco hanka darawalka inuu kii yahay uma jeedid kii mid kale ahay ilaan waqtigii yaraa gaariga uu bareega qabanaya nin kala soo fuulay gaarigan highwayga uu saaran yahay anuguna i fiirinaya ninkan gaarigan war maxaa kaa qaldan waraade waxaas waxa igama gelin gaariga istaaji waryaa nin waalan baa tahay hortaada fiir horta shilaana gelina waa dhimanaysaa caaw waryaa ninka maag oo gaarigan lahaayo ninkan dhiiggiisa noocuu yahay inaa aragtaan ma jeceshiin madow iyo guduud noocuu yahay haa aniga naxdin dhidid fara badan aa iga da-ay wallah aniga taleefankeyga soo qabsaday waxaa isku dayaa 911 inaan waco isla markii hawadii ay soo qabatay 911 na waa wac halow iga soo gaara nin waalan baa meeshaan igu dili raba isla markii gaariga meel oo gees u istaajiyay war ka bax gaariga cararna aniga isla markii gaariga aan ka soo baxay waan soo cararay ninkaana agteedu ku soo cararay si kadisa ninkii wuu istaagay cirkii wuu fiiriyey isla markii gaariga gadaal dambe wax ka baarbaaray haddana wuxuu ku laabtay gaariga shirka haddana wuu soo baxay wuxuu baarbaaray isla markii haddana cirkuu fiiriyey aniga ninkan masixiroola is iri muxuu sameynayaa talo cirkuu cabaar fiirinaya aniga naxdin ninkiina meeshii uu iga tagay oo duurduurka ahayd bacaadkii isla markii anigoo yaaban booliskii ay imaaday oo dhaxmoonaya hadee dhaxanta meesha ku jirtana waa yaabaysaa askarta waxay dhaheen ninkii waa xirnay gurigiina ay keeneen anigoo dhaxamoonayo isla markaas su-aalo fara badanaa maskaxdeyda kusoo dhacay waxaa is iri ninkan muxuu iga damacsanaa muxuu saas ii dhahay muu i dili rabay ilaa iga badbaadiyey ilaa maantadan jawaabo uma hayo waana qis xanuun badan oo igu dhacday asxaabi gasaara horta waan soo laabtay waana iska mashquulay ramadaan kariim dali dibad meela ku sugantihiin muuqaalkan like fara badan saara love you all